بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامتي وعنو وناكسن داوديال صاحبي رمضان كريم مركز اسم غلارك صوبن ayaan hawada idin leenahay kusoo dhawaada channelka Daljir Media oo uga go'ateen warar xaqiiqo ah dhexdhexaad markaasina xaqiiqada ku qotoma oo mar kale inagu ku kulmeynaa tabinteen tooska ah ee isla falanqayn doona arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay. saddex qodob ayaan caawa isu taagi doonaa haddii Allah ku tilmaamo qodobka koowaad ee degniinta dowladda Soomaaliya ay u dirtay dowladaha Djibouti iyo Kenya oo ku saabsan shirka Midowga Afrika iyo sidoo kale dhacdadii ka dhacday airportka magaalada Muqdisho ee Cad International Airport oo markaasi gacan ka hadal ka dhacay iyo sidoo kale shirkii taageerada nabadda ee beesha Hawiye ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. aan ku bilaabay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa degniin ka dambaysa maanta waxa uu hawada u mariyay labada dowladood ee Kenya iyo Djibouti oo wakiilada u kala fadhiya labada dowladood midowga Afrika markaasi uu sheegay in ay carqaladeyn ku hayaan shirka midowga Afrika ee ka yeelanayaan xaaladaha Soomaaliya. wasiir Cusmaan Abuukar Dube ayaa isagu shir jaraa'id oo ka baxay warbaahinta qaranka Soomaaliya waxa uu istigniin adag oo ka dambaysa u diray labada dowladood isagoo sheegay in ay markaasi carqaladeynayaan amaba ay dano gaar ah ka leeyihiin shirkaasi markaasina ay doonayaan warmurtiyeedka ka soo bixi doona shirkaasi qodobo gaar ah oo ayagu ay doonayaan in loogu daro. haddaba qodobadaasi maxay yihiin? labada dowladood horta waxaan ognahay Djibouti iyo Soomaaliya waa laba dal oo walaalo ah oo markaasi xiriir qoto dheer ka dhaxeeyay. Soomaaliyana Djibouti abaal weyn ayay ku leedahay oo waxaad ogtihiin inta ay soo garab taageen iyo waxyaabaha ay u soo qabteen ilaa iyo hadda ciidamada Djibouti waxaad ogtihiin dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab oo goobo kamid ah ama gobollo kamid ah dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin. hase ahaatee dhawaantan waxaa xumaaday xiriirka labada dal kadib markii guddi baaritaana oo ay Djibouti ku jirto loo diray xalinta khilaafaadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan dhinaca Mandera. guddigaasi sida ogeydeen warbixin ay qoreen oo ay sheegeen in aysan ciidamada Kenya ku arkin xuduudda in maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ka gardaran tahay Kenya. warbixinta markii ay guddigu daabaceen kadib Soomaaliya ayaa u soo joogtay Djibouti oo waxa daawanaysa wasiir Dube oo isagu fariin u diray dowladda Djibouti markaasina duray amaba su'aal geliyay walaalnimadii iyo xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya Djibouti ka dhaxayn jiray. halka markay mareysay waxaad ogeydeen Soomaaliya iyo Kenya khilaaf ka dhaxeeya oo dhinaca badda ku qotoma oo markaasi soo jiitay muddo hadda laga warsugay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ inay go'aan ka soo saarto. intaasi kadib waxa maanta marka soo baxday warkan wasiirka uu soo jeediyay ee ahaa in labada dowladood waa Djibouti iyo Kenya ay carqaladeynayaan shirka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee midowga Afrika ay leeyihiin markaasina ay doonayaan qodobo iyagu ay wataan in lagu daro warmurtiyeed ka soo bixi doono. qodobadaas waxay yihiin kow in labadii sano ee guddiga doorashooyinka loo kordhiyay meesha laga saaro, labo madaxtinimada ama hogaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in meesha laga saaro. labadaas qodob ay aad uga cadaadinayaan in shirka lagu daro warmurtiyeed ka soo bixi doona. halka dhinaca midowga Afrika wadamada intooda badanna ama waddo inta kalena ay leeyihiin Soomaaliya wada hadal ha ka galaano, siyaasiyiin Soomaalida ha isu yimaadaan, wada hadal ha lagu dhameeyo, khilaafaadka doorashadana ha lagu xalliyo. dhinaca Soomaaliya waxa ay doonaysaa in midowga Afrika ay Soomaaliya u ogolaadaan ama ay ka caawiyaan si doorasho qof iyo cod ay uga dhici lahayd. marka waxaa moodaa marka saddex aragti oo kala duwan inay kala tahay Soomaaliya iyo marka aragtidooda gaar ah iyo Djibouti iyo Kenya oo iyagu maxaa la yiraahdaa ajandahooda wata iyo midowga Afrika oo soo go'aamo soo saaraya. midowga Afrika go'aamadan iyo shirkan uu fadhiyo waxa uu ka dambeeyay kadib shirka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ka yeesheen oo ay midowga Afrika ugu baaqeen inay arrintan Soomaaliya ay markaas kaalin ku yeeshaan ama dhexdhexaadin ka galaan. haddaba waxa isweydiinta mudan maxay tahay maxaa xilkan ku soo beegay degniinta dowladda federaalka Soomaaliya ay u dirtay labada dowladood Djibouti iyo Kenya iyadoo aan weli war rasmi ah oo ilaa hadda maxaa la yiraahdaa xaqiiqada ku saleysan oo ka soo bixin shirkaasi. warar hoose oo dowladda soo hoose ay ku heshay ayaa sheegaya marka labadan dowladood ay ajendahaasi wataan markaasina dowladdu waxa ay kasii hor dhacday ama ay warbixin hordhaca ama digniin hordhaca u dirtayba labada dowladood Djibouti iyo Kenya. wixii ku soo kordhan waa idinkula wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda haddii Allah uu ogolaado. dhinaca dhacdada airportka aadan cadde haddaan u imaado markana airportka aadan cadde shalay sida la sheegay waxa ay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dalka Soomaaliya ee NISA uga soo degay wafdi iyaga u socday
oo sida la sheegay 3 qofood ahaa isla markaasina u galay gudaha dalka Soomaaliya iyagoo aan baasaboorkooda visa loo saarin. Elaboorka Muqdisho oo in badan waxaan yiraahdaa aan tagay mararka qaarkoodna aan ka shaqeeyay waxaan si buuxda uga wada shaqeeyaa hay'adaha sirdoonka laamaha ammaanka oo qaybooda kala duwan iyo immigrationka ama waaxda socdaalka. sharciyan adduunka qof kasta oo wadanka tagay haduusan diblomaasi ahayn oo san diplomat ku soconin waxaa sharci ah inuu maro passport control ka loo yaqaan ama halka lagu jeegray passportka qofkan uu wato iyo qofka wuxuu yahay lagu jeegray. haddii wararka soo baxayaan weli baaritaan xaqiiqo kuma sameeyeen haddii wararka soo baxay sax yihiin oo hay'adaha nabad sugidda ama sirdoonku ay si xoog kula bixeen dad wadanka soo galiyay waa qalad ka dhacay hay'adaha sirdoonka waxaan filayaa inay sax doonaan. haddii markaasi dhacdaasi waxay dhacday marka shalay maanta maxaa marka soo celiyay waxaa soo celiyay dad fowda ka shaqeynaya oo raba wadanka inuu fowda galo oo arintii shalay daba taagnaa ayaa maanta fowdadii shalay maxaa la yiraahdaa dhacday maalintii shalay dhacday fowda u bedelay markaasina gacan ka hadal u bedelay. haddaba marka laba hay'adood meel ka wada shaqeysan ay isqabsadaan isku dhacaan waa wax iska caadi ah oo laba shakhsi iyo laba kooxood meel ka wada shaqeysan waa iskhilaaf karaan sunnada shaqada ayaan ka mid tahay in shaqada la isku khilaafo. laakiin waxaa su'aal isweydiin mudan waxay tahay elaboorku waxa uu timid wadnihii wadanka waa muraayadii dadka laga eeganayay waxaa la yiraahdaa waa ilihii dhaqaalaha ugu muhiimsanaa wadanka ayuu ka mid yahay. muuqaalkii CCTV-da ee sirta ahaa ee xogtii dowladda ahaa ee sirta dowladda ahaa marka maxaa kalifay in la baahiyo oo maxaa la lagu baahiyo baraha bulshada oo caalamka oo aan arkaynin la tusiyo. dabcan shakhsiyaad dana gaar kale oo dana siyaasadeed kale ayaa baahiyay arrintaasi iyagoo sida fikirkooda uu yahay kula dagaalsan madaxweyne Farmaajo. dabcan Farmaajo elaboorka ma shaqeeyo Farmaajo immigration kama shaqeeyo nabad sugidna kama shaqeeyo Farmaajo waa madaxweyne dalka Soomaaliya. wax kasta oo aad rabtid inaad Farmaajo ku xumeysid waxa horta ka hormarsiisaa miisaan ku saartaa intee dhaawac in la eg bay wadanka u geynaysaa horta. dabcan wadanka waa shaqaalahan elaboorka ka shaqeynaya iyaga wadanka iskale waa wadankooda haduu burbur wadankooda ka burburay haddii uu xumaatana shaqadooda iyaga ka xumaatay ugu horreyn saameynta ugu koowaad ayay ku yeelanaysaa waayo shaqadooda xumaanaysa. sida aad daawanaysan wasiirka dowladda hawada iyo wasiirka maxaa la yiraahdaa amnigaba waxa ay sheegeen inay talaabo ka qaadi doonaan shakhsiyaadkii arrintaas ku kacay dadkii xogta wadanka baahiyana ama sirtii wadanka baahiyana talaabo laga qaadi doono. khalad koowaad wuxuu ahaa in hay'adaha sirdoonku ay u gacan dhaafaan immigrationka qofka hadduusan diplomat ahayn oo san diblomaasi ahayn. khalad labaad dhac wuxuu ahaa in maanta gacan qaad uu gudaha elaboorka weliba raamka loo yaqaano meesha baakinka diyaaradaha in dagaal ka dhacay gacan qaad uu ka dhacay in hantidii elaboorka sida arkaysay muraayadihii iyo wixii la burburiyay dad dhaawac loo geystay khalad kale ayuu ahaa. waxaa marka intaas oo dhan kasii weyn in xogtii qaranka la baahiyo oo maxaa la yiraahdaa banaanka loo soo bixiyo. khaladka ugu weyna ay kaas ayaa noqon kara. dabcan shakhsiyaadka lagu helo sida ay daawanaysay wasiiradu waxay sheegeen baaritaan ku socdaan cid alla cidii lagu helana dabcan waxaa sharci ah inuu ciqaabta u dhiganta maro kow shaqada laga joojiyo labo sharci loola tiigsado maxkamad la soo taago. marka dhacdaasi waxay ahayd dhacdo aad nasiib darro u ah aad foolxumo u ah isla markaasina wax aan la qaadan karin ah. waan rajeynayaa laamaha ammaanka iyo hay'adaha ku shaqada ay talaabo ka qaadaan. waxaa arkaysan shir degdeg oo ra'iisul wasaaraha uu isugu yeeray labada wasiir ee khusayso madaxweynaha ay u tageen madaxtooyada isugu wada tagay go'aano degdeg ah ka soo baxay baaritaan degdeg ah ayaan lagu wada wixii ku soo korana waa idila wadaagi doonaa. inta marka kaga soo gudbo shirkii taageerada nabadda ee beesha iyo magaalada Muqdisho maanta ku yeesheen. dabcan shirkaasi waxaa arkayseen horta ugu horreynba shirkaasi waxaa horta ka soo qayb galay tiro ka badan tiradii ka qayb gashay shirka Hotel Jazeera lagu qabtay. dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen maxaa la yiraahdaa bulshada rayidka ah siyaasiyiin hore siyaasiyiin xilligan ah musharaxiin madaxweyne oda dhaqameedyo abwaano dhalinyaro. waxaa kasii horreeya arkaysan habeenada soo dhaafay shirar dhalinyarada magaalada Muqdisho ay ku qabanayeen hoteelada qaarkood oo ay warbaahinta aad ka daawanayseen. marka labada shir oo shirkii Jazeera ka dhacay iyo kan maanta Royal Palace ka dhacay marka la isku barbardhigo isku miisaan ma ahano sida muuqatay shirkan ayaa miisaan badnaa shirkan ayaa shacbiyad badnaa shirkan ayaa taageero badnaa. marka aad fiirsidna wararka ka soo baxayay shirkan Jazeera ka dhacay waxaa dadka ka qayb galay ahaayeen musharaxiin madaxweyne oo doonaysa xilka inay qabato. hadallada ay ku hadlayeen waxay ahaayeen hadallo xanaf leh waxay ka hadlayeen waxay ahayd dagaal iyo hurin iyo in ciidamada la qabiileeyo in qabiil la isugu dhaco in magaalada Muqdisho dagaal ka dhaco in lagu kala guuro in wadanku maxaa la yiraahdaa dagaaladii sokeeye ee 91kii dib loogu laabto. waxaad moodaa in maxaa la yiraahdaa ay hadalla dhammaantood khalafsan xanaf leh ahaayeen. shirkii maanta oo daawanayseen waxa xalqadiisu waxa nabad baan rabnaa nabad baan deeqada nabad aan sanduuqa leh nabad baan naga badan.
dalka la isku marbardi karo in madaxweyne farmaajo la taageero iyo in laga soo horjeesto waa mowduuc gaar ah oo halkeeda taala waa arrin siyaasi ah laakiin in nabadda laga shaqeeyo oo nabadda la taageero waa wax cid walba u yaala waana waajib cid walba saaran marka shirkaasi wuxuu ahaa shir maxaa la yiraahdaa ku soo aaday xilli munaasib ah dad wax ku ool ah wax garadan ay ka qayb galeen maxaa la yiraahdaa waxyaabo markaasi ama hawlo nabadda lagu taageerinayo kasoo baxeen maxaa la yiraahdaa waana shir mudan in la bogaadiyo waxaan aad u bogaadinayaa in alla intii kasoo qayb gashay in alla inta nabad jecel mar walba waxaan kula daarmayaa bil ramadaan baa lagu jiraa waa bil cibaado nabadda u hiilin nabadda ka shaqeey afkaaga iyo qalinkaaga ugu hiilin nabadda ha noqonin afku dhiigle oo adigu afkaaga ha ku kasbin ama ha ku keenin inaad dad dhinto ama dhiig loo daadiyo aad baa u mahadsan tihiin ramadaan mubaarak waxaan idinka codsanaa muuqaalka inaad sii sheergaraysaan channelka youtube-ka aad subscribe saartaan aad baa u mahadsan tihiin inta ayaan kusoo afmeerayaa caawa tan intaan barnaamij mid lamid ah hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegaya sida ay nabadgelyo nabadin nolol kulantay iyo amaano allah salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu